بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan galabta aan halka ku qabanaynaa wacyigelin khusaysa maandooriyaha oo bulshadeena maanta faraba aan ku haya qaadka iyo khamriguna waliba khaasatan khamriguna ugu muhiimsan yahay oo xiliyadan dambeeto aad moodid in uu soo goostay oodaha iyo maxaan ku raadayay oo bulshadii aad u soo dhaxgalay dad badan oo aan cabi jirin ay cabayaan dhalinyaro badan oo maxaan ku raadayay ka hufnayd oo aan bahalka ku dhex jirin hadda ay ku dhex jiraan oo ay maxaan ku raadayay ay aad u cabayaan marka insha Allah taala waxaan kelmadeena u qaabeynaa inaan marka hore ka hadalno maandooriyaha iyo waxa uu yahay isla markaana aan ku xijino xaaraantinimada ilaahay uu xaaraantinimeeyay iyo waliba wadooyinka iyo qaababka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaaraantinimeeyay oo maraaxil ilaa 3-4 meelaha uu ilaahay mariyay iyo inagoo markaa ku xijina dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo hadday fardi tahay iyo haddii ay tahay mujtamaca dhammaan marka aan tilmaano maandooriye waxay ka muuqataa kelmadda Soomaaliga ah maandooriye la yiraahdo ayaa macnaha rasmiga ah uu ka muuqdaa maanka waynu naqaanaa oo waa aqligii iyo garashadii qofka iyo wixii qofku uu bini aadamka ku ahaa ilaahayna uu kaga duway xayawaanada kaleeto ama noolaha kale ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga fadilay ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimaha dheeraadka uu ku siiyey kii ayaa la doorinayaa oo la bedelayaa oo wax laga bedelayaa ama sidii wanaagsaneeda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu galay si aan ahayn ayuu u gelayaa marka magaciisa ayay ka muuqataa markii loo bixiyay maandooriye waxa uu yahay iyo dhibka uu leeyahay iyo xumaantiisu magaciisa kaliya ayaa ku filan maadaama aqliga ilaahay ku siiyay maxaan ku uu kaaga fadilay maxaan ku raadayay noolihii kaleeto ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku geliyay ee garashadaadii iyo dadnimadaada dhim ay ku xidhnayd uu bahalkani uu doorinayo oo wax ka bedelayo waxaan rabnaa inaan si gaara isu dul taagno khamriga oo xilligan aan isleenahay aad ayuu u badan yahay ama maxaan ku raadayay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya gudaheeda aad ayuu ugu farabatay ka bacdi markii ay waayeen dawladda iyadu laga yaabo waxyaabo fara badan oo khamrigu uu kamid ahaa inay kantaroolaysay ama ay maxaan ku raadayay sida hadda uu yahay aanu maxaan ku raadayay aanu ahayn maandooriyaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu xarimay oo kitaabkiisa ayuu ku xarimay ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuu xarimay oo sunnihiisa ayuu ku xarimay culimada islaamkuna way ku ijmaaceen inuu xaraam yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu aayad qur'aana ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalazlaamu rijzun min camali الshayطaani faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inamaa yuriidu الshayطaanu an yuuqica baynakum alcadaawata wاlbagضاء fi اlkhamri wاlmaysir ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إلهي سبحانه وتعالى وحولي دادك مؤمنين تا إيمانك لغا هلايو خمرجي إيو ميسركي إيو أنصابتي إيو أزلامتي ورجسي ووحن وعمل شيطان فاجتنبوه بقى إلهي الله سبحانه وتعالى كديراد أو كفوغادا إنك مركب وحن كربنا كوة كلا ما أنت دنتنا ما أهي بوس عن كهالينا khamriga ayaan ka hadlaynaa ilaahayna isagu ku bilaabay subxaanahu wa tacaala wuxuuna ugu bilaabay foolxumadiisa iyo maxaan ku raadayay meesha uu joogo darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu bilaabay oo xataa waxyaabaha kaleeto
oo foosha xun ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka hormariyey wuxuu aayadda ku gabagabeeyey fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun war ka fogaado ka dheeraada haddaad sidaa yeeshaan liibaan iyo wanaag inaad heshaan ayaad maxaan ku rahday markaa mudan tihiin oo dhab ah ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku sii daray shaydaan ayaa wuxuu doonayaa inuu dhexdiina cadaawad iyo isnac iyo maxaan ku rahday iyo xumaan uu ku dhigo khamrigii iyo maysirkii iyo khamaarkii iyo turubkii inuu cadaawad iyo isnac dhexdiina ku dhigo weliba dikriga ilaahay iyo salaadiina uu idinkaga awdo oo uu idinkaga qariyo marka aayaddaasi waxay noogu filan tahay markaan ka hadlayno xaaraantinimadiisa in ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa uu ku xaaraantinimeeyey oo uu yahay shay aan bannaanayn haaniya nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamayaa kullu muskirin xaraamun wax kasta oo caqliga doorinaya oo qofka maskaxdiisa wax ka bedelaya waa xaaraan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa weliba wuxuu ku sii daray axaadiista qaarkood oo ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo sameeya oo khamri cabba oo maskaxdiisa dooriya oo maskaxdiisa waxyaabaha maanka doorinaya la yimaado oo sameeya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka waraabin doonaa qiyaamaha marka la yimaado iyo naarta marka la galo dadka ahlu naarka ah dhididkooda iyo qurunkooda iyo waxyaabaha ka soo baxaya ayaa ilaahay ka waraabin doonaa oo loo sharaabinayaa sida ay sharaabka khamriga uga dhiganayeen oo adduunyada uga cabbayeen sidoo kaleeto ijmaacu culamaa oo daliilka saddexaad oo ku xiga labadaas ah waxay culimmadu soo rarayaan oo ay tilmaamayaan inay culimmadu ay ku ijmaacday inuu xaaraam yahay weliba waxay ku tilmaamayaan inuu ku jiro waxyaabaha daruurada ah ee diinteenna lagu ogaaday ee qof kastoo muslimi ay lagama maarmaan tahay inuu ogyahay inuu xaaraam yahay marka waa shayga noocaasa ee nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam in badan uu inooga digey ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inaga xaaraantinimaynayey maraaxil buu mariyey marxaladda koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama carabi ay isticmaali jirtay sharaabada ay ugu jeclaayeen uu ahaa markiiba ma goyn oo kama xaaraantinimayne waxa ilaahay uu isu barbardhigay xumaantiisa iyo wanaaggiisa yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa khamrigii iyo maysarkii bay ku weydiinaya waxaad tidhahdaa waxaa idinku jira manaafic iyo waxtarna waa idinku jiraan adraar iyo dhibaatooyin fara badan iyo ismi fara badanna wuu leeyahay laakiin ogaada oo ismigiisa iyo xumaantiisa ayaa mar walba ka badan maxaan ku rahdayey wanaagga uu leeyahay marxaladdii ku xigtay waxay ahayd marxaladdii ilaahay subxaana wa tacaala uu uga digey mar haddaanay daynayn inta ay salaadda xilligeedii la joogo inaanay maxaan ku rahday isticmaalin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun kuwii mu'miniinta ahaayow ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu idin amrayaa salaada ha u dhowaanina oo ha tukanina idinka oo sakhraansan ilaa aad ka fahamtaan oo ka garataan waxa aad ku hadlaysaan marxaladdaa markii laga gudbayna waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku gebagabeeyey inuu xarimo oo waa aayaddeenu hadda ka hadlaynay maxaan ku raday yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijzun min camali ashaytaani fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo gebagabeeyey marka maraaxishaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu u xarimay isaga oo markaa jacaylkii ay dadku u qabeen iyo sharaabkii uu ahaa aan hal mar ilaahay ku soo boodin oo aanu ka goyne uu markaa maraaxishaa u sameeyey si ay tartiib uga hadhaan saxaabadu niman iimaankoodu aad u sarreeyey ayuu ahaa waxaa la warinayaa markii aayaddaasi ay soo degtay inay khamriyadii guriga ugu kaydsanaa ee ugu jiray aashuunnada iyo maxaan ku rahday mardabaanada iyo meelaha ay wax ku kaydsadaan inay daadiyeen oo magaaladii madiine ahayd la arkay iyadoo uu qulqulayo yacni maxaan ku rahday daad badanoo khamri la daadiyey ah
markiiba ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisii way qaateen. innaga laakiin waxaa laga yaabaa qofku isagoo og inuu xaaraam yahay inuu u bareero oo maxaan ku raadayay uu iska cabbo ama uu iskaga faakahaysto wax iska fudud u arko. waxaanu dareemaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qaababka uga hadlay ama nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu inooga reebay inay tahay walaalayaal oo ay muujinayso yacni adiladu waxyaabo far badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga reebay sababteeda. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu muujinayaa yacni maxaan ku raadayay cabbitaankiisu dhibaatada uu leeyahay. in nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofka cabba waxaa laga waraabinayaa oo la siinayaa diinatulkhabaalo. markay saxaabadu weydiiyeenna uu yidhi waa ahlunaarka dhididkoodii iyo waxyaabihii ka soo baxayay. waxaa ka mida walaalayaal nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii xiriir la sameeyey khamrada ayuu lacnad dusha uga tuuray oo yidhi ilaahay waa lacnaday. lacnaduna waxaa weeye naxariista ilaahay oo qofka laga fogeeyo. wuxuu lacnaday kii samaynayey, oo wuxuu lacnaday kii soo qaaday, oo wuxuu lacnaday kii iibiyey, oo wuxuu lacnaday kii cabbay. 10 qof oo xiriir la sameeyey khamriga ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lacnaday oo lacnad dusha uu ka saaray. waxaa halkaa laga dareemayaa yacni meel kasta oo qofka uga soo dhowaanayo in teed laga dhigay oo la yidhi ha qaadin oo ha iibin oo ha samayn oo ha cabbin oo ha dilaal, yacni dhinacnaba ha u raacin, xataa gaarigaaga ha ku qaadin. waxyaabaha muujinaya yacni maxaan ku raadayay dhibaatadiisa waxaa ka mid ah weynidiisana muujinaya shareecadeennu waxay ka dejisay xad qofka laga oogayo, jeedal lala dhacayo, bulshada horteeda lagu ceebaynayo oo lagula dhacayo jeedal qofka khamriga cabba oo lagu soo qabto isagoo khamri cabbaya. waxa weeye waa shay muujinaya xumaanta khamrigu uu leeyahay iyo meesha bulshada dhexdeeda uu ka joogo iyo meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uu ka joogo maxaan ku raadayay qof dullaysan oo bulshada dhexdeeda lagu garaacayo oo lagu dullaynayo. waayo khamri buu cabbay, caqligii ilaahay siiyey ee wanaagsanaa ayuu dooriyey, ayuu beddelay, waali ayuu ka doortay miyir qabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey. marka wuxuu ku mutaystay in la jeedalo oo la garaaco ayuu ku mutaystay. dhibaatooyin buu leeyahay iyo adraar uu bulshada ku hayo. fardi kasta oo cabba wuxuu ku hayaa dhib gaar ah, bulshadoo dhanna wuxuu ku hayaa dhib gaar ah oo bulshadoo dhan ay ka siman tahay. maalan qofka cabba marka koowaad dhaqaalihiisii iyo hantidiisii buu ku bixinayaa oo waa dhib. marka labaad cudurruu ka qaadaya oo maxaan ku rahdaa caafimaadkiisiibuu wax u dhimayaa oo maxaan ku rahdaa hebel baa beerkii googo'ay iyo weliba khamriyada hadda innaga inoo yimaada kan caalamka laga cabo oo la hubiyey oo saafiga ah maaha. yacni wax maxaan ku rahdaayay aan tayadiisa caafimaad cidina eeginoo baarin weeye. sidaa darteed cudurro fara badan iyo dhaawacyo fara badan buu u geysanayaa beerka iyo caloosha iyo intaba markuu tago. marka caafimaadkiibuu wax u dhimayaa oo caafimaadkaagiibuu wax u dhigamayaa. caqligaagii ilaahay ku siiyey buu marka saddexaad wax u dhimayaa oo doorinaya. qof waalan baad noqonaysaa oo aan xaarka ceshan karin, oo aan kaadida ceshan karin, oo meesha dayacan iyo meesha liidata aan iska celin karin, oo maxaan ku raadayay subaxii marka waagu uu beryo aad la yaabaysid hebel oo bulshada dhexdeeda sharaf ku lahaa oo la jiidayo oo la kaxaynayo gaari la saarayo. wuxuu dhib ku yahay sharaftaadii sidaan hadda tilmaamaynay oo qodobka afraada. ninkaagii hebel ahaa ee bulshada dhexdeeda qiimaha ku lahaa, ama shakhsiga wanaagsan ee aqoon-yahanka ahaa, ama hantiilaha ahaa, ama madaxda u ahaa bulshada
maxaan ku raday manaasibteeda dawladeed iyo teeda dhaqan miduun u hayay haddii aad maxaan ku raadayay isticmaashid khamrigii wuxuu keenayaa in marka bulshadu ay ku ogaato oo qiimahaagii uu hoos u dhaco wuxuu keenayaa sida hadda magaaladeena ka dhacaysay in mararka qaarkood dad badan laga kaxayo magaalada dhexdeeda iyagoo dhaadhacay war ninkii hebel halka ku dhaadhacaya la yiraahdo marka sharaftaadii buu wuxuu dhimayaa noloshaadii buu halis gelinayaa oo hadda waxaynu aragnaa maxaan ku raadayay inta qof maxaan ku raadayay markaynu magaaladeena kaliya fiirino baran inta qof khamri sababtii u dhaawacantay ayaynu ognahay oo maxaan ku raadayay ama isagu isdhaawacay intuu cabay ama maxaan ku raadayay cid dhaawacay ayaynu ognahay inta iyo ina kala fara badan oo waqtigu saamaxaynin duubitaanka oo waqti koobana inaan maxaan ku raadayay sii wadno ayuu afraadda bulshada ku haya bulshada dhanna waxay u siman yihiin oo maxaan ku raadayay uu ku hayaa kow amni xumo ku hayaa amni xumo ayuu ku hayaa oo inaga aynu sida layfa u aragnay ama maxaan ku raadayay cayaanan aw muuqata aynu u aragnay xabada dhacaysa iyo magaaladeena waxa ka jira magaalooyinka kalena wayna la mid markaad wareysatid kolle inta Puntland maxaan ku raadayay iyo meelaha inagu dhowdhow oo dhan ama Soomaaliya dhanba intooda badan way ka siman yihiin marka amnigii buu wax yeelaya oo waxaanu hadda halis ugu jiraa maxaan ku raadayay xabada dhacaysa inay qof qaadato oo amnigii sida khalkhal uu ku galo wuxuu dhibaato ah oo bulshada uu ku hayaa caafimaad xumada aynu soo tilmaanay iyo dhaqaale xumada iyo intuba bulshada saameyn bay ku yeelanaysaa bulshada saameyn bay ku yeelanaysaa wuxuu bulshadii ku hayaa handadaad ah in qofkii cabay dhaladii uu ka cabayay markuu in ku reebo oo qaar cabo qaarna oo miyirkiisi uu tago iyadoo kala baran ama wax ku harsan yihiin inuu wadooyinka iyo shaaracyada uu ku tuuro ama magaalada dhexdeeda uu ku tuuro taasina ay keento in caruurihii ay qaataan oo iyagoo aan garanaynin ama qaarkood ba dhalinyarada waaweyn iyagoo garanaya ay marka iyana cabaan oo halka marka ay ka bartaan maxaan ku raadayay khamriga iyo cabitaankiisa ay halka ka bartaan marka waxyaabahaas oo dhan ayuu leeyahay waxaan u baahanahay bulshada muslimka looga baahan yahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala rumaysan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumaysan waxa looga baahan yahay inay ka waantoobaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala fa hal antum muntahun buu ina leeyahay war matihin kuwa ka hadhaya cabitaankiisa oo faraha ka qaadaya adiga lagula hadlayaa qofka muslimka ah qofka mu'minka oo adaa ilaahay ku weydiinaya dhibaatooyinka maadaama uu leeyahay ma ka hadhaysa waa dhibaatooyinka qaar aynu ka tagnayba aayadu inoo tilmaamaysa إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إنه إصنع ينعيب ودحدين الدقه وأتكد دقالنتان ومحان كوري أدسكد دشان dhibaatooyin kiisa ka mid tahay marka waxaan u baahanahay inaan ka reebtoonaano oo ka hadno waxa kale oo laga maarmaan walaalayaal marka laga yimaado qofka muuminka in iimaankiisu uu celiyo oo uu ka celiyo waxyaabaha xaraamta ah ee aan diinteena ku banaanayn ee Ilaahay iyo rasuulkiisuba ay ka reebeen waxa iyana laga maarmaan in la helo dawlad dadka u damaanad qaada oo ilaalisa diintooda marka koowaad marka labaadna adduunyadooda ilaalisa dawladdu waxay dawlad ku tahay oo waxa loo idmaday uu yahay inay ilaaliso dadka diintooda iyo adduunyadooda marka waxa la rabaa dawlad maxaan ku raday dadka ilaalisa oo ka ilaalisa waxyaabaha soo kaleeto khamrigi ka joojisa wax kasto maandooriya iyadu u istaagta inay marka ay ka hortagto xashishadii ay kamid tahay oo iyana magaalada maxaan ku soo gasha oo ay kamid tahay maxaan ku raday qaadkii uu kamid yahay waa laga maarmaan laakiin haday dawladdu jirto oo aanay dadka diintooda ilaalinayn runtii lama oran karo marka waa dawlad u taagan maxaan ku inay bulshada u shaqeyso waxaan marka ku gabagabeynayaa bulshada inay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baqaan oo arrinka ka hadhaan cidda keenta inay Ilaahay uga baqdo ka hadho waxaan ku gabagabeynaynaa
dawladduna inay doorkeeda qaadato ay ku leedahay oo ah inay dadka u ilaaliso diintooda iyo adduunyadooda oo iyadu ay ka hortagto wax walba oo diintooda dhibaya ha ogaadeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala qiyaamaha markay taagan yihiin ilaahay uu weydiin doono bulshadatan aad mas-uulka u noqoteen maxaad u qabateen diintooda maxaad u ilaaliseen khamriga yacni hareereeyey oo qarqiyey oo dhallinyaradoodii yaryareed ay hadda baranayaan oo cabbayaan maxaad wax uga qaban weydeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala idin weydiin doono arrinkaa ku talagala intaasaan ku gebagabanaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo kuwa ku dhaqma oo fahma waxa aynu isnidhi ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa wallahu subxaanahu ka qayb qaado oo taageer barnaamijyada wacyigelinta bulshada ee xarunta hadaf wixii faahfaahin nagala soo xiriir ciwaanada hoos ku qoran